weli ma akhriday buugga la yidhaahdo Think and Grow Rich ee uu qoray Napoleon Hill. buuggan maanta waxaan idiin wadaa 6 cashar aynu ka baranayno. 6dan cashar waa 6 cashar aynu ku dabaqi karno nolosheena, taas oo ina siin karta isbeddel wanaagsan oo nololeed. casharka koowaad waxaa noqonayaa adiga ka mas'uula noloshaada 100%. يعني مسؤوليتها noloshaadu cidda ay saaran tahay waa adiga. isbeddelka cidda samayn karaysa ee nafteeda bedeli karaysaana waa isla adiga un. marka haddii aad aqbasho in aad 100% waxa weeraad ka mas'uulka tahay u yahay naftaadu, waxaad la imanaysaa dadaal kastoo ka baxayso sidii aad uga madadalin lahayd isbeddelka noloshaada ee dhabta ah, kaas oo ku horseedaya wacnaan iyo wanaag. markasta qofka mas'uuliyadiisa saaro sideedaba waa markastuu bixin karayo dadaalka mas'uuliyadda ku qaadi karayo. qofkuna wuxuu taagay hadba mas'uuliyadiisa saaraa inta ay leeg tahay ayuu dadaalkiisuna leekaanaya iyo waxa uu ka fikiraya. casharka labaad aynu ka baranayno waxa uu yahay waxaad ogaataa in guuldarradu ay tahay casharka ugu wanaagsan. يعني qofku markuu shay ku guuldarraysto waxa laga yaabaa inuu isdhiibanayo jabo oonu ka fikirin qaab kale oo uga shaqayn lahaa, sidoo kale aanu khibradu ka faa'iiday guuldarradiisaas aanu ku larin tallaabooyinka kala duwan inuu qaado. يعني guuldarradu marka laga hadlayo buugani wuxuu leeyahay waa khibrad wanaagsan oo aad ku sixi karto waxyaalo badan oo ka qaldana kuna noqon karto khabiir wanaagsan. oo sideedaba qofku markuu wax cusub baranayo culays buu dareemaa. tusaale kale qofku markuu baranayo baaskiilkoo kale ama socodkoo kale uu baranayo, markuu ilmuhu aadka u yaraa waxaynu ogeyn oynu garan karaynay inaanu aqoonin waxa la dhahdo isdhiibitaanka. si kasta oo ay baaskiiladaas ula dhacdo amba intuu kaco uu u kufo oo haddana kaco uu kufo, yacnihii muu joogsanaynin. mar walbana wuxuu soo noqonaya isagoo intii ka xooggan kana khibrad badan. marka wuxuuna leeyahay buugani waxaa la dhahay failureka amba inaad wax ku guuldaraysataa maaha dhammaadka isku daygaaga iyo guushaada. casharka saddexaad waxaynu leeyahay waa inaad yeelataa yool amba hadaf waa inaad yeelataa. waayo markaad hadaf leedahay waxaad garanaysaa halkaad u socoto iyo halkaad ka socoto, waxaa kuu kordhay iyo dadaal kastood ku bixin karayso sidaad halkaa u gaari lahayd. qofkuna hadduu hadafku ka lumo waxaa ka luma dhammaan jihada saxda ee nolosha iyo wax qabadka. inaad han yeelataa waa shayga ku dhaafinaya qeyrka. casharka afraad aynu ka baranaynaa waxa weeyaan waxa la dhahdo foxka, ama inuu qofku diiradda ku hayo yacnihii shaygu qabanayo. shaygaad qabanayso inaad u soo jeesato ood 100% maskaxdaada u soo jeedisaa waxay ku siinaysaa inaad si wanaagsan aad wax uga barato, sidoo kale si wanaagsan aad u noqoto qof heli karaya dhammaan xogta uu shaygaas uga baahan yahay. tusaale kale haddaad buug akhriyayso waa inaad maskaxdaada soo wada jeedisaa oona telefoon isku dul furin ama social media ku isticmaalin ama aanad meel buuq la tegin. yani waa inaad meel 100% foxkaagu uu soo jeesanayo aad ku akhridaa. waana sababta lagu leeyahay meel degan wax ku akhri marka wax akhriska la dhiirigelinayo. marka foxku waa shayga ku fahamsiinaya dhammaan xogtaad uga baahan tahay waxaan si fudud aad u baran karayso. qodobka shanaad amba casharka shanaad waxayna leeyahay weligaa ha joojin inaad wax barato. waxbarashadu waa shayga la isku dhaafay. waxbarashadu maaha ta iskuulaadka iyo jaamacadaha kaliya, laakiin waxbarasho ka qiimo badan oo kala jirta, taasoo ah akhrinta buugaagta, daawashada yacni videos xogtoodu ay aad u wanaagsan tahay oo muddo kooban waxa weeyaan kugu soo koobaya xog aad in badan kuga qaadan lahayd. la kulanka yacni asxaabta wanaagsan aad wax ka baran karayso. dhammaan shay kastoo kuu sahlaya inaad xog cusub oo wanaagsan oo anfaacile adduuniya aakhira baad barataa waa mid ku siinaysa inaad isbeddel nololeed wanaagsan aad gaadho. marka ha joojinin inaad wax barato. qofkuna maalintuu isu aqoonsadeen wax walba yaqaano oo maalintuu joojiyo inuu wax barto ka fogow taas. markastana maskaxdaada ha u furaato inay xog cusub ay hesho. casharka ugu dambeeya 6aad aynu ka baran karno buugani waa hantida keliyaad haysataa waa maskaxdaada. hantida keliyaad ee aad haysataa waa maskaxdaada. tan fasirkeedu waxuu noqonayaa maskaxdu waa shayga la isku dhaafay oo macnaheedu noqonayso ha fikirku
ama qaabka qofku u fikiraya waxa uu ka fikiraya waxa uu jaangoya sida uu dhaqmayo waxa uu jaangoya ficiladu samaynayo waxa uu jaangoya halka nolosha waxa weeyaan kaga hagaagayo ee uu ka gaarayo marka qofka cadow kaga xun maskaxdiisa oo ku xumaata amba fikirkiisa noqdo fikir xuni ma jirto wax kaga wanaagsan inuu fikirkiisa wanaagsanaadana ma jirto oo heer gaarsiin karaya marka maskaxda waxaynu gelinayno ama waxaynu ka fikirayno ama waxaynu daawanayno ama waxaynu dhageysanayno waa shay aad muhiim ah inaynu aad uga taxadirno way cuntadaad cunaysaa saameyn waxay ku leedahay calooshaaduna waxa weeyaan jirkaaga intiisa kale waxa caloosha gala ayuu saameyn ku yeelanaya hadduu wanaagsan yahayna caafimaadkaaga kor u qaadaya hadduu xun yahayna halistiisu leeyahay sidaas si lamid ah maskaxdaada waxaad gelisaa oo macnaheedu noqonaysa halka maskaxda loo maro dhegtaada waxaad gelisay iyo ishaaduba waa maskaxdaada waxaad gelisaana hadduu halis yahayna waxa weeyaan noloshaadu galaafanaya hadduu wanaagsan yahayna kor buu ku qaadayaa waana ku wanaajinayaa meel wanaagsanna waad ku gaadhaysaa marka hantida ugu wanaagsan ee uu qof haystaa waa maskaxdiisa waana tala isku dhaafay 6 si guud waxay u hoos imanayaan ciwaanka buugga think and grow rich way macnaheedu tahay fikir oo qani noqo dhammaantoodna waxay la xidhiidhaan oo aha fikirka kaas oo ah halka qofku iska bedelo aaminaada qofkuna ay ka timaado sidoo kalena u sahasha inuu afcaal wanaagsan uu sameeyo taasoo kaga midho dhalin karayo walkiisa kala duwan waxaan rajaynaya inaad fahanteen aad baad mahadsantihiin